saacadihii la soo dhaafay wiilkan yar ee lagu magacaabo Cabdulqaadir Liibaan Xasan waxa uu ahaa mid ay sawirkiisa si aad ah dadku iskula wadaagayeen baraha bulshada. Sawirka uu galay oo muujinaya inuu yahay mid ku faraxsan nolosha koonkan aadanuhu u kala qaybsan yahay, mid duruufo nololeed la dala dhacaya iyo mid wax haysta ayuu dhanka kalena bixinaya macno kale maadaama uu ku labisnaa funaanad ay ku xardhan tahay astaanta calanka Soomaaliyeed ee buluuga ah. Halkan waa hoyga Cabdulqaadir yare, afar ka mid ah walaalihiisa iyo labadiisa waalid oo hooyadii ay umul tahay ay kaga nool yihiin magaalada Boosaaso. Waxa ay dhex degan yihiin kaambara kacyaala oo duleed ka ah magaalada. Cabdulqaadir hadda ma xirna dharkii shalay uu xirnaa, waxa uu guriga dhinac ka dhiganayaa dhar ay dhalinyaro muxsiniin ah uga soo iibiyeen suuqa, iyadoo dhalinyaradan ay qoyskan danyarta ku taakulayeen waxa ay awoodeen. Inkastoo Cabdulqaadir yare uusan awoodin in uu la hadlo warbaahinta, hase ahaatee Liibaan Cabdulqaadir Xasan oo ah aabaha dhalay Cabdulqaadir yare waxa uu ka sheekeynayaa nolosha qoys ahaan ay ku nool yihiin. wiilkaas anaa dhalay haddana anuu ila joogaa, waxaan joognaa Toorobooro Boosaaso. alxamdulillaah rabbil caalamiin, noloshiina waa iska fiican tahay. wiilkay waxa inkastoo waxbarashadiisa oo ilmahay waxbarasho ay haysan waa alxamdulillaah waa iska khayr hadduu ilaahay. wiilka dad baa yireen wiilkaaga ilaahay dartiis baan u imaanay muslimnimo bilaadanimo. hadda waa dharkii laga soo bedelaa loo soo haweenaa, dad baa yiraahdeen noloshiisa wax baan ka bedeleynaa. alxamdulillaah ilaah baa noloshooda dad ilaahay wax ka bedelay, maadaama dad Soomaaliyiin oo san u dadaalayaan khayr ilaaha siiyo. caruurtan waxa dadkan dhalin anaa dhalay waxaas waa khalad, waa foolxumo. wiilaada dhalina dhahad anaa dhalay waxa ku qaraabatay wax loo saacido waa iska rabnaa. hadda arrimaha ugu waaweyn nolosha waxbarasho ma haysto. tan ugu waaweyn waxa iska rajay lahayn ilmaheena waxbarasho in la geeyo, waa tan ugu muhiimsan waxbarashada ilmaha aan haysan. qaar ka mid ah dhalinyarada isku hawlay inay caawiyaan Cabdulqaadir Liibaan Xasan yare ayaa dhankooda ka waramaya sida ay ugu suurta gashay in ay wiilkan yar iyo qoyskiisa u taakuleeyaan. waxay ugu fududaatay horta sawirkiisa haynay waan baxnay. horta dad badan baa ila soo xiray, waxay u dhaheen wiilkan lagama waayo aaga Jubba Boosaaso Jubba 1. waan raadiyay, ilaahay qadartiis walaalkiis baan helay oo kii ka weynaa hadda oo Maxamed baan helay. marka waxaan ku iri sawirkan walaalka miyaa, wuxuu ugu yiri walaalka. horta marka hore dhibaato kale aan la kulanay oo ah nin baa lambarkiisa noo soo diray. ninkii wuxuu ugu yiri wiilkaana dhalay, hooyadiis waa dhimatay, waxba uma joogaan, magaaladu iskaga jira. mubaarag baa la dhahaa. horta xogkan dib u nisii waqti baan ugu qaadatay inaan raadino oo aan saxno, in muddo ay ugu qaadatay muddo hal saac ka bacdi waan soo helay. ilaahay qadartiis dahabshiil baan waxaan ku arkay wiilkan. waa weydiiyay sawirka adiga walaalka miyaa ahaa, sidii guriga igu keenay. ilaahayna waa ii fududeeyay. runtii saaka markay ahayd 3 saac ilaa hadda waxa ku jirna hawshooda saa waxa ugu qaban lahayn, aan garab u siin lahayn, farxadda haystaan mid ka wanaagsan oo la qaybsan lahayn. waxaan rabaa kale inaan u mahad cesho ragga dhinacyada taagan oo si qurux badan ila shaqeeyay, maasha Allah. runtii waxa lagu yahay walaal oo adduunka loo wada joogaa in wax la istiro oo garbaha la isqabsado, oo kan miskiinka ah oo waxba haysan dhulka laga soo qaado kor loo soo qaado. waxaan ku jiray ilmo yar oo 20 sano jira isku waxayna Soomaaliya tacaawun ilmaha yarka waxaa jira kuwa badan oo ka caawimaan marka umada Soomaaliyeed ee dadka dibadda dawladda joogta ku gudaha jooga wada ugu fadhiyay tacaawun qabanayaan in hoy loo sameeyo dadkan sidoo kale goob waxbarasho ku bartaan. waa bogaadinaya cid kastoo arrintan igala shaqaystay gabdhaha taagan inaan qoyskan aan u qarino ama aan indhaha bulshada aan inoo tahay wax weyn bulshada ka faa'iidaysanay inaan keliya ama qoyskan keliya. waxaa jira qoysas badan, waxaa jira dad yatiin ah, waxaa jira waxaa ku dhacay hooyooyin badan
diirsan waan ognahay boosaaso xilligeeda qabowga ana waa qabow daran kuleelkeeduna waa kuleel daran jiidada naga dambaysa walaasha annagu aan u jeedno cadceedda ma xajin karayso dabaysha ma xajin karayso ilmo yar oo 20 casho dhalan waa joogaan waa xaalad qof walba uu dareemi karo xanuunkeeda iyo dhibaatada ay leedahay walaalaha Soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo khayrka jecel waxaan ku bogaadinayaa sidii ay awalba khayrka iyo wanaagga iyo maaragtay waxa wanaagsan ay ula bixi jireen inay dadkan walaalaha masaakiinta ah hoos loo eego runaantii annagana lagu eegayaa ilaahay uma waayin wax ay cunaan iyo wax ay cabaan iyo wax ay xirtaan inoo qorto laakiin ilaahay umadiisa ayuu eegayaa waxaan leeyahay dadkeeni ku hoos